Ururka dhalinyarada Onkod oo weli wada biyeysiinta dadka nugul ayaa gaaray deegaanka Xaaji Nuur Sane oo hoostaga degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan. Dadka ku sugan deegaanka Xaaji Nuur Sane ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wajahaya xaalad adag iyadoo ay heleen biyo ay cabaan. Xaaji Nuur Sane oo ah gudoomiyaha deegaanka ayaa Shabeelle loogu warbixiyay xaaladda ay ku sugnaayeen muddooyinkii ugu dambeeyay dadka ku nool deegaanka Xaaji Nuur. Qayr Allah siiya ururka Onkod waa markii labaad ee hadii Ilaahay noo imaadaan oo hadii Ilaahay ay noo imaadaan biyo dhaaminta ay noo keenaan waa bargi waa markii labaad. Marka kale ninka hadii Ilaahay biyo soo sadaqaystay Maxamed Cumar Samatar iyo ururkaba waa u mahad celinaa. Qayr Allah siiya dhamaantood ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo. wadanka Xaaji Nuur waxa ka jirta oon loo baqtinayo oo loo dhimanaya aad iyo aad hadii Ilaahay sida badan oo loo baqtiyo haya gaadiidka biyaha waa keeni waay deegaankiisan aad u farabadan yahay codsi qayr Allah siiya hadii Ilaahay walaalaha kala oo hadii Ilaahay qurbaha jiro aan hadii Ilaahay codsi waxaan nahay biyahaas inaan hadii Ilaahay idmaan aan hadii Ilaahay aan helno oo hadii Ilaahay keen oo walaalahayn aan hadii Ilaahay noo soo gurmadaan aan hadii Ilaahay aan codsanahay qayr Allah siiya ururka Onkod oo hadii Ilaahay baahidan inta arkay noo imaaday hadii Ilaahay marka labaadna biyaha noo keenay marka kalena hadii Ilaahay dadka wax nagu soo sadaqaystay iyo ayaga waa u mahad celinaa qayr ajir iyo xasanaad. Ibaan Subane Daawud TV-ga raadiyaha Shabeelle deegaanka Xaaji Nuur Sane.